السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا channel kayga Saleyka Channel waxaan halkan ku sharaxay imtixaankii 2021 sanadka la soo dhaafay qaybta saddexaad taasoo ay tahay grammar in use taasoo ah grammar wax loo isticmaalo oo ay tahay third markers oo soddon oo muddo ah waxaan ka shaqeynayaa qaybta marka fill in the blank space buuxi meelaha banaan with the correct words taasoo ay tahay ereyada mid ku saxan from the words ereyada given loo siiyey meesha waxaan ku qoran jumlad toosna waxaa ku yaala markaas ereyo abc ilaa d ay ku egyihiin midda koowaad oo kale waxaan u lahay I aniga obligate for the waxaan aniga la markaasi meesha waxaa ka maqan dash ay sii tahay I really do she said politely marka meesha waxaa galayso ereyga koowaad oo ay tahay markaasi oo ay tahay loose oo ah dia galayso midda koowaad midda labaad oo kale waxaa inoo qoran why did the child meesha waxaa ku qoran waa dash to eat round mangoes while he had ripe ones erey ripe macnaha waa bisel waa meesha waxaa inoo qoran juice waxaa inoo sii Jos iyo Josin iyo Jusin marka meesha waxaa inoo galayso juice ayaa inoo galayso waxay noqonaya markaas lagu buuxinaa why did the child choose to eat raw mangoes while he had ripe ones. Okay, so I said mother hooyadu for us each Allah markaas time she gets an opportunity. Okay, meesha waxaa galaysa marka waxaa la mother hooyadu for us each time waxaa la markaasi mid kasta la markaas ama waqti walba she get a heshalan she ayada gets an opportunity fursad meesha waxaa galaysa marka waa praise agalayso praise agalayso midda saddexaad waa while will Ahmed waxaa meesha dash ay noo tahay depel tomorrow morning macnaha Ahmed waxaa ka maqan meesha marka verb ka maqan marka maxaa galayso rank ma galayso mise waxaa galayso rank ama ringing ama rank waxaa galayso marka ring agalayso oo ay tahay xarafka d waxaa noo xigay su-aasha shanaad Mrs. Faqduma daasha meesha ay tahay cooked the food okay meesha waxaa galaysa marka waxaa lu siiyey myself yourself herself iyo waxaa lu siiyey iyo oneself meesha waxaa galaysa marka herself aa galayso okay midda shanaad oo kale waxaa nolu siiyaa honestly you do not need four macnaha daacadnimadu waxay u baahan tahay afar waa radius iyo radius marka waxaa dhawaaq ka qaldan marka markii ay tahay plural ka dhigano kala galayso ee galayso ah radius su-aasha toddobaad oo kale please do not forget fadlan ha iloobin to buy some inaad iibiso xoogaa dash meesha waxaa inoo qoran markaasi for grandmother meesha waxaa inoo qoran marka potatoes waxaa inoo qoran markaasi potatoes marka waxaan fiirinanaa pluralka singular midka ay ku saxan tahay kale waxaana galayso marka si ay inoo galayso oo ay tahay potatoes lambarka sideedaad waxaa la markaasi all the disappeared into the bush maxaa la dhammaantoodu waxaa la markaasi disappeared waxaysan ka muuqanin into the bush alla markaasi kaynti ama duhurka ma diirisaa galayso diiris ma galayso mis diira galayso waxaa galayso marka mid kale u dambe deer waxaa galayso marka diirisaa galayso okay su-aasha sagaalaad waxaa inoo qoran does your father do is he a doctor or a teacher waxaa meesha lusi where why iyo when iyo waxaa lu siiyey iyo what waxaa galaysa marka what ay galayso su-aasha tobanaad iguna ugu dambeysa circleka imtixaanka dowladda 2021 lasoo dhaafay did you alamkaas find at the mall adigu miyaad ka heshay carwada ali or aisha ma ka heshay ali ka heshay who's waxaa lu siiyey who iyo waxaa lu siiyey what iyo when meesha waxaa galayso who did you find yaad kumaad ka heshay at the mall ala markaas suuq weynka waxaa loo yaqaan mall meelaha xanan lagu gado oo carwada ay tahay almiya ka heshay or ama aisha marka maxaa galayso who ama waxaa galayso where waxaa loo siiyey what iyo when abi who's halkaas waxaa inoo eg imtixaankii 2021 lasoo dhaaf sanadka lasoo dhaaf imtixaanka dowladda fasalka form 4 haddana sida qodobada kala dhiman oo kale waxaa inoo dhiman division oo kale dhiman iyo sheekada kale dhiman si aad ula socoto fadlan waxaa inoo saarto subscribe si aan xogta aan idinku soo gudbin insha Allah aad u mahadsantiin